halkan waa xanta wararka ku biirow ka mid noqda daawadayaashii nagu xiran waxyaabaha daawan doontaan barnaamijkan aynu ku falanqeyn doono daawadayaasha saaxiibadii nagu xiranow waxaa ka mid noqon doona hadduu alweyn raallow ka noqdo weeraro qaraxyo loo adeegsaday ayaa markaasi ka dhacay muqdisho. waxaan idiin soo gudbin doonaa hodheelka xayaat oo gudaha loo galay ilaa iminka khasaare ayaa jira oo weerarku waa uu socdaa. waxaan idiin soo gudbin doonaa xogii ugu dambeeyey ay ku gadaaman soo afjaridda dhacdadaasi. warbixin ayaan kusoo gudbin doonaa hadduu alweyn raallow ka noqdo. sidoo kale hoobiyaal ayaa lagu tuuray degmada xamarjab ee muqdisho. 20 qofood ayaa dhaawacantay. xogo warbixin ayaan kusoo gudbin doonaa hadduu alweyn raallow ka noqdo. sidoo kale waxyaabaha daawan doontaan waxaa ka mid noqon doona iyana aanu halkan kusoo gudbin doonaa hadduu alweyn raallow ka noqdo. haweeney ayaa lagu dilay gurigeeda kadib markii mindi lagu waxyeeleeyey. waxaan soo gudbin doonaa qodobada iyo kuwo kale. soo dhawaada, halkan waa xanta wararka ku biirow ka mid noqda daawadayaasha saaxiibada ee asxaabta sida tooska ay nagu xiran leegareeya shargareeya qaybta hoosan arahdaada iyo waxa ay kula tahay nagu dhaaf daawade. wararkii ugu dambeeyay khasaaraha weerarka hodheel xayaat ayaan weli ku guda jirnaa oo weli markaasi socda. maleeshiya ka tirsan kooxda al-shabaab ayaa weli ka dhex dagaalamaysa hodheelka xayaat ee magaalada muqdisho ku yaala ama ay ku jiraan muddo ka badan saacado, waxaana jira khasaare dhimasho iyo dhaawac badan. al-shabaab ayaa hodheelka ku yaala agaarka kilomitir 4 waxay weerar markaasi ku bilowday qaraxyo gawaari loo adeegsaday ku qaadeen abbaare 7 fiidnimo ee xalayto iyo dhowr daqiiqo, waxaana kadib galay maleeshiya ka tirsan kooxdaasi. waxaa hadda soo baxaya xogta khasaarihii ugu horeeyey, waxaana la xaqiijiyay dhimashada ugu yaraan 10 qof, waxaana dhaawaca uu markaasi yahay mid intaa ka badan. dadka hodheelka ku dhintay ee aan magacyadoodu helno waxaa ka mid ah ganacsade Cabdiraxmaan Xasan Iimaan, Yuusuf Mahad Barrow, Ibraahim Raage, Cabdihaadi Maxamed, Sheekh Aadam Xasan, Maxamuud Faarax iyo qaar kale oo markaasi ka mid ah labeenta muqdisho. dadka ku dhaawacmay waxaa ka mid ah taliyihii nabad sugidda gobolka Banaadir Muxyidiin Warbac Shadoor oo ka mid ahaa ciidankii u gurmaday hodheelkaasi shabaabku galeen. gudaha hodheelka ayaa waxaa ka socda dagaal u dhexeeya ciidanka dowladda iyo maleeshiyada al-shabaab oo aan cadadooda rasmi ah markaasi la aqoon. al-shabaab ayaa la sheegay inay markaasi fuuleen qeybta kore ee hodheelka oo muuqaalo la baahinaya ay muujinayeen ciidanka dowladda oo qeybtaasi doonayay inay markaasi ka saaraan si gudaha loo galo, maadaama ay qeybta kore sababtay in weerarku uu daaho iyagoo u adeegsanayay ciidanka dowladdu hubka wax burburiya. sidoo kale ciidamo kale oo ka tirsan dowladda oo ku sugan agagaarka ama banaanka hodheelka ayaa hub culus ku garaacay hodheelka iyadoo ay markaasi adkeed in kooxdaasi al-shabaab laga saaro. al-shabaab ayaa markaasi qoraal ay kol hore baahisay ku sheegtay inay hodheelka ku dhex dileen in ka badan 20 qof, balse si madax bannaan looma xaqiijin kara sheegashadoodaasi. hay-adaha amniga dowladda Soomaaliya ayaan weli wax wara ka soo saareen weerarka. waa weerarkii ugu horeeyay al-shabaab ay ku gasho hodheel ku yaala muqdisho tan iyo markii 15 bishii May la doortay xasan sheekh maxamuud waa madaxweynaha jamhuuriyadda. xasan sheekh oo ahmiyadiisa koowaad ka dhigaya in laga adkaado kooxda al-shabaab, hase yeeshee dowladda weli ma qaadin wax tallaabo ah oo ka dhana kooxdan, mana soo bandhigin qorshaha dagaal ay ku wajahayso ururkaasi shabaab. 20 qofood ayaa la sheegaya inay ku waxyeeloobeen hoobiyaal lagu garaacay degmada xamarjab ee magaalada caasimadda ee muqdisho. faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay tiro hoobiyaal ah oo xalay ku dhacay xaafado ku yaala degmada xamarjab ee gobolka Banaadir, kuwaasi oo geystay khasaaro u badan dhaawacyo. hoobiyaasha oo gaarayay ilaa 5 madfac ayaa waxaa markaasi lasoo warinayaa in lagu markaasi garaacay agaarka iskool buluusi ee magaalada muqdisho. wararku waxay sheegayaan in madaafiicdu qaar ay ku hoobteen xaafaday degan yihiin dad shacab ah oo khasaare ka soo gaaray xilli ay hurdayeen, sida ay noo xaqiijiyeen ilo wareedyo lagu kalsoon yahay. waxaa dhacdadan ku dhaawacmay ilaa 20 qof oo u badan dad isku qoys ah. sidoo kale waxaa dad ka dhaawacmay ka mid ah lamaane caruus ah, hooyo iyo 3 caruur ah oo ay dhashay iyo dadyow kale, sida ay noo sheegeen ilo dadka deegaanka ah. ilaa hadda ma jiro wax war ah ama hadal ah oo ka soo baxay saraakiisha laamaha ammaanka ee dowladda Soomaaliya, gaar ahaan booliiska, oo ku aadan dhacdadan weerarka ay loo adeegsaday hoobiyaasha. waxaanu ku aadayaa iyada oo weli uu socdo howlgal lagu soo afjarayo weerarka tooska ah ay kooxda al-shabaab ku qaaday hodheelkaasi xayaat ee magaalada muqdisho, kaasi oo uu soo bilowday fiidkii hore ee markaasi xalayto abbaare 8 ilaa iyo 7 aroornimo. sidoo kale
waxyaabaha la yaab kale ee ka dhacay hodheelkaasi weerarka lagu qaado waxaa ka mid ah in 2 caruur ah iyo hooyadood oo markaasi ka mid ah dadka hodheelka degnaa ay hooyadu laga soo badbaadiyey, caruurtuna ay ku baxsadeen ama ay ugu carareen musqul. ugu dambeynna markaas sidii sababtay in laga soo badbaadiyo ilmahaas yarka ah. dhacdadaasi waxay ahayd mid ka mid ah dhacdooyinka ugu waaweyn ee baqdinta geliya dadka ee lagu baahiyey baraha bulshada, sida ay markaasi xaqiijinayaan xogaha iyo dhacdooyinka aanu markaasi helayno. si kasta oo xaaladda noqoto, mid ka mid ah saraakiisha laamaha ammaanka oo aanu la hadalnay waxa uu inoo sheegay in weli markaasi xaaladdu aysan fadhiyin dhaqdhaqaaq ama markaasi shaqaaqan ay ka socoto gudaha hodheelka, oo weli aanan markaasi inoo xaqiijin karaynin in lasoo afjaray weerarka. sida uu inoo sheegay, intii uu ku maqnaa salaada ayaa xaaskiisii markaasi lagu gowracay hoygeeda ama sariirteeda. macluumaad dheeraad ayaa waxaa laga helayaa dhacdo xanuun badan oo ka dhacday jimcihii xaafadda Tusbaxle la yiraahdo ee ku dhacda degmadaasi Daynile, kadib markii sariirteeda lagu gowracay haweeney lagu magacaabi jiray Qamar Yuusuf Cali. marxuumadda ayaa ahayd hooyo korinaysay 6 caruur ah, waxaana uu dhacay nin ku hubaysnaa mindi oo ku dhex gowracay hoygeeda xilli ay hurdaysay. ninka hubaysan ayaa la sheegay inuu u dhacay guriga xilli uu salaada subax u baxayay sayga marxuumadda oo guriga kor uga xiray, waxaana kadib soo daba markaasi maray ninka mindida watay oo la sheegay inuu ahaa tuug, sida ay shaaciyeen ilaa dadka deegaanka ah. Aweys Yuusuf Cali oo la dhashay marxuumadda ayaa sheegay ilaa 3 mindi in lagu dhuftay, walaashiis ayna ku dhimatay dhaawac markii hore soo gaaray tooreyda. ninkeeda ayaa xalay la joogay, guriga ayuu kor kaga xiray, salaad ayuu aaday. intii uu salaada ku maqnaa ayaa la soo jebiyey guriga. ninkaas soo jebiyey guriga ayuuna galay, kadibna 3 toore ayuu ku dhuftay marxuumadda, ayuu yidhi Aweys Yuusuf Cali oo la dhashay haweeneydaasi la dilay. sidoo kale wuxuu intaa raacinayaa in ninka uu baxsaday markii uu kusoo kaceen caruurta guriga joogtay, iyada oo ay markaasi haatan uu socdo baaritaano ay wadaan laamaha ammaanka gaar ahaan CID-da. ilaa hadda lama xaqiijin karo, laakiin qaab tuug waaye, baaritaan ayaana markaasi hadda ku jirnaa, ayuu raaciyay hadalkiisa. magaalada Muqdisho waxaa muddooyinkii markaas ugu dambeeyay kusoo kordhaya falalka lagu beegsanayo haweenka ee dilalka arxandarada ah ee loo adeegsanayo tooreyda. waxaana ugu dambeeyay dilka Hiba Qaasim Maxamed oo toddobaadkii hore ka dhacay agagaarka waa markaasi deegaanka Ceelasha Biyaha, iyadoo markaasi lagu weeraray gabadhaasi xilli ay ka mid ahayd ardaydii u dabaaldegtay ka mid noqoshada ama ku guuleysiga imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiga sare ee dowladda. si kasta oo ay xaaladda noqoto, mashruucan ayaa u muuqda markaasi dhacdo baaris uga baahan laamaha amniga, maadaama dhowr haween ah lagu tooreeyay magaalada caasimadda ee Muqdisho bilooyinkii aynu soo dhaafnay, taasi oo u muuqata beegsi ka dhan ah dumarka, taasi oo ah markaasi dhacdo u baahan in ay falgal ku sameeyaan laamaha ammaanka ayay leeyihiin dadka arrimahan isha markaasi goonida ku haya. si kasta oo ay xaaladda noqoto, dhacdooyinkan ayaa siyaabo kala duwan uga dhacay degmooyin kala duwan ee Muqdisho sida Daynile, Kaaraan iyo Ceelasha Biyaha, iyo hab ugu badnaata degmada Kaaraan oo ah meelaha ugu badan ee weerarada tooreyda ah ay ka dhacaan. si kasta oo ay xaaladda noqoto, dhacdooyinkan ayaa ahaa kuwa markaasi aad u sii baahay, iyadoo ay markaas inta badan ay geystaan kooxaha dhaca geysta, kuwa iyagu markaasi sameeya tuugeysiga oo telefoonada qaata ama guryaha u dhaca. waxaana dhacdooyinka la yaabka leh ee dhaca in dhawaalaba aadka loola yaabay ka mid ah in tuugadu wax dhacdo inta badan ay sameeyaan weerar ama dil ka hor inta aysan qofku markaasi ka qaadan telefoonka, agabka, lacagta iyo waxa kale oo markaasi sito, taasi oo ka mid ah waxyaabaha iyana markaasi dhaqan soo kordhay kuna soo kordhay bulshada Soomaaliyeed. si kasta oo xaaladda noqoto, halkan waa xanta wararka ku biiro ka mid noqon daawadayaasha saaxiibada sida tooska inoogu xiran, adigoo la garanaya sidoo kalena share garanaya qaybta hoosena araadaada waxay kula tahay noogu dhaafaya daawade. intaanu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono, waxaan idin kaga tagnaa oo idin dhaafnaa sida iyo nabaadiino amaana Allah. daawadayaal saaxiibayaal, fadlan ku biiro ka mid noqon daawadayaashanaga iyo saaxiibada asxaabta ah ee inagu xiran. ha hilmaamin inaad la garayso sidoo kalena share garayso daawada saaxiib. nabaadiino.
Volete no?